السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتي meel kasta aad joogtiin waa idin salaamaya waxaan idin rajeynayaa bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad inaa ku joogtaan anaga maasha Allah waa idin fiicannahay waxaan rabaa inaan idin soo duubo video yar saa u jeedaan sawirka saa ugu jeedaan videogii waxa waa arrimaheeni aan ka hadli jirnay ee fooshii uurkii walaaci waxyaabahaasiiti waxaan rabaa inaan ka hadlo su'aal dhowr jeer soo noqoto runtii su'aashaasna hadda koorna video kasoo sameeyay u maleynayaa taasoo ahayd calaamadaha foosha lagu gartaa runtii horta calaamadaha foosha gabdho waxa waaye qofba si ay u qabataa bini'aadanka isku mid ma ahan qofba si ay u qabataa xataa waxaa laga yaabaa adiga nafs ahaantaada cunuga koowaad sidee kuu qabato waxaa laga yaabaa cunuga labaad inaysan kuu qabanaa laga yaabaa oo isku mid ma ahan walaaco kale saas waa walaac isku mid ma ahan qaar waxaa waaye waxaan ku dhahay walaac maba dareemaanba caadi iska yihiin qaar waxa waaye walaac waa ku xanuunsadaan afkooda cunto ma saari karaan ilaa waxaa la gaarsiiyay weliba faleebo lagu suro isbitaal la geeyo qaar waxaan ku dhahay barfuunkeena caayaan qaar barfuunkay jecel yihiin qaar waxaa lagu leeyahay ninkooda ku nafisa maxaa la ku sinifaan bay ku xanaaqaanba alla marka waxa waaye qofba si waaye fooshina saas waaye qofba si ay foosh u qabataa oo qof waxaan ku dhahay foosh waxay u qabanaysaa iyadoo iska jiifta lagu soo boodo ama biyaha ka dalaacayaan birrig isbitaalka la geeyna waa dhashay qof waxaan ku dhahay maalmo soo foolanaysaa qof walba ma qabanaysa markaas waqtigii loo qabtay in la dhaafaa waxaa la dhahayaa laga fooliyo qofkaaneeti marka waxyaabo waxaa jiro oo waxaa jiro calayaha dhowr qodob waxaa rabaa inaan ka hadla caawdo oo badanaa dumarka ay ka siman yihiin oo calaamadahaas markuu qofku isku arko allay lee fool waay la dhaho dumarka dhan ay ka siman yihiin waay oo weliba intaas calaamadaha sheegaya waa 8 ilaa 10 waaye waxaa laga yaabaa hadeysan adiga kulli aad wada dareemin waa in at least half ka mid aad dareentid waay calaamadahaas foosha calaamadaha foosha inay foolku heeso waxyaabaha lagu garto horta ugu weyn waxa waaye biyaha markay ka dilaacaan biyaha hadday ka dilaacaan foola timid waaye foola xataa foosha haddii iskad u maxatay waa qasab in lagaa soo dhalsiiyo waaye marka calaamadaha ugu weyn waxa waaye inay biyaha kaa soo dilaacaan okay taasoo kale biyo markay soo dilaacaan waa inaad fool isku diyaarisaa waaye ama inay iskad u imaado ama lagaa dhalsiiyo talabaad oo kusoo xigto waxa waaye waxyaabo waxaa jiro dhiig yara imaanayo oo maxay ahaydee hooyada ka imaanayo dhiigaas haddaaba xaamilo tahay oo waqtigaaga la gaaro dhiig kaa imaado ayadana fooshi waaye hadduusan problem kale jirin oo xanuun kale aysan jirin waxaan ka wadaa amba cunugii dhibaato soo gaarta amba adigii si kale wax ku kaa noqdaan oo kale ilaahay intii muslim uma kaso intii hooyo dhanba uma kaso marka dhiig haddaa isku aragtan waxaa qasab waa inaa isbitaalka wacdid waaye oo isbitaalka qasab inaa u xiriirsid waa adoo dhiig isku aragto xaamile ah oo sagaalkaada ama 8 bil dhamaysatay weligaa ha aamusan fool ha sugin qasab isbitaalka inaad tagto ama dhakhtarkaaga wacdid oo la socodsiisid waaye inaa calaamadaas isku aragto dhiiga ka mid okay waaye mogtahay calaamadaha kale waxaa jirta eegan xanuun oo weliba waxaa jiro xanuunka way kala yihiin xanuunka dhiiga caadada marka isku aragtid oo dhabar xanuunka mindhicir xanuunka dhiiga caadada oo yahay ayaduna fool bilowgeed waaye xanuunkaasi dhiiga caadada badanaa xanuunada foosha lagu tiriyo ka mid tahay qodobka afraad aan rabo waxaan idin sheego waxa waa xanuun asigana waxaa jiro oo ku qabanayo oo waxaa jiro oo sidii kan foosha camal ma aragtay 10 daqiiqo 3 jeer lagu qabahay 10 daqiiqo 3 jeer lagu qabahay 10 daqiiqo 3 jeer lagu qabahay ama 10 daqiiqo hal jeer lagu qabahay oo kale aadan ogeyn inuu xanuunkan oo yahay mid isku dheeli tiran waxaa sameeysaa markaas oo kale waa jiifanaysaa oo dhulka ama dhigaysaa dhulka marka madax dhigtid oo waxa qabanaysaa iska deesoo nasatid hadduu xanuunkaas ku daayo xanuun fool ma aha gabdho hadda koorna soo sheegay umaleena xanuunka foosha ma daayo maxay heeday ma ka tagayo adoo jiifto nasaaxte uu ku qabaha dhabdhaba lagu sii hayaa marka xanuunkaas iska socdo xanuunkaas oo markaa jiifata ayadana aan tagayno soo taagan oo iska socdo asigana kii foosha waaye waxyaabaha kale lagu garto waxaa ka mid badanaa waxay dhahaan shubanka caloosha inay ka baxdo hadaa xaamilo tahay ee caloosha ka baxayso ayadana calaamadaha foosha lagu garto ee kamid tahay iyadana ay kamid tahay hadaysan ku qaban adiga waxa laga yaabaa qof kale inay qabato saa idin sheegan calaamadahan kulli waxa waa qasab ma inay ku qabtaan qaar kamid inay ku qabtaan muhiim waa sidii biyo dilaaco xanuunkii marka dadka
dadka qaarna waxba ma qabto oo hal kamid ah qabta calaamadaha soo sheegay, qaarna kuliya wada qabtaa, qaarna laba kamid ah qabta. Marka bini'aadanka idin sheegay isku mid ma aha. Waxyaabaha kale la isku arko waxaa kamid ah geed waxaa yimaado wax adoo jiidmaayo hooyada ka yimaado. Mararka qaar waxaas cad marna jaalo waaye, mar waxa waaye gaduud bibi ah waaye dhiig yar la socdo. Calaamadahaas oo kale oo weliba jiidmaayo waxa waaye oo xoogaa kuusan waaye. kaasoo kale markuu kaa yimaado iyadana calaamadii foosha iyadana badanaa lagu tiriyaa. Markastaba haddaa calaamadahaas mid kamid ah isku aragto aan xanuunka ahayn, xanuunka caadi waaye, xanuunka markuu ku qabto kale isbitaal ha wicin, waxaa iska sug intuu ka imaanayo calaamad kale ama biyo ka dilaacayaan amba xanuunka naftirkiisa oo naqanayo. Hadda ka horna soo sheegay oo malay xanuun waxaa jiro gabdho oo hadduu ku qabto oo aad u lahaatid ilgooni u lahaatid oo xanuunkan maxaa waaye okay saacada jirta la qabsanayo 10 daqiiqo 3 jeer hadduu ku qabto oo 3 daqiiqo hal mar 3 daqiiqo hal mar ku qabto oo 3 jeer 10 daqiiqo gudahood ku qabto oo saas ku socoyo xanuunkaas xanuun fool ah waaye oo weliba haddaad jiifato kaa tageeno haddaad jiifato kula joogo xanuunka 10 daqiiqo 3 jeer ku qabanayo xanuunkaas fool waaye. kaasoo kale inaa wacdi qasab waaye, laakiin xanuun markuu ku qabto kale oo jiifatidoo kale kaa tagay ama xanuun dhiiga caadada kale kaasoo kale normal waa waqti la siiyaa. sida kale dhiigoo kale marka isku aragto iyadana qasab waa isbitaalka inaa wacdi, biyaha kale markay dilaacaan qasab waa in isbitaalka wacdi. marka waxa waaye gabdha calaamadahaas calaamadaha ugu muhiimsan ay kamid tahay. intaas soo sheegana muhiim waa inaa isku aragtid intaas kulli inaa isku aragtid muhiim maaha, xabad kamid inaa isku aragtid muhiim maaha. bini'aadanka isku noos idin soo sheego hooyaba si wax u dareentaa. marka waxaa idin rajeynayaa intii xaamil ah inuu ilaahay kala keeno idinku caafimaad qabta ilaahay idin kala keeno insha Allah tacaala. ka raali ahaada ayaanta video YouTube waxba soo magelin waa iska mashquulo shaqo waxaas ku mashquulo, laakiin dib mala insha Allah video idinku soo tuuraya. waxaan ka soo hadli doonaa insha Allah sheekooyinkeena oo fooshan ka soo hadli doonaa. gabdhaha badanaa way xiiseeyaan sheekooyinkaas anigana aad u xiiseeyaa runtii. waa idinka mashquulo aad iyo aad idinkaga raali gelinaya. waxaan idinka codsanayaa videoga inaad like saartid insha Allah tacaala. asxaabtaada amba saaxiibta amba walaasha oo xaamilan u sii tuur ay ka faa'iidee insha Allah tacaala. kulley hooyooyinka badanaa markay saan oo kale xaamil u yihiin oo kale badanaa information ay raadiyaan oo waxay raadiyaan calaamadaha waxyaabaha calaamadaha iyo foosh wax lagu garto iyo waxyaabahaas inay raadiyaan. marka hooyadu ilaa waa iska daalanta 9 bil caloosh ku soo wad waxay iska rabtaa inuu ilaahay kala keeno. waxaan kaloo ilaaween intaan ubad heysano ilaahay ubad saalax si badanaa dhamaanteen baa u duceyn inta qofka videoga dhageysto inuu u duceeyaan ka codsanaya hooyooyinka aan ubadka heysano ilaahay ubad saalax oo baari ah oo siiyo. anaga ku waran ilaahay noo badbaadiyo noo daayo gaalada shartooda noogu xijaabo insha Allah tacaala baariyaal nooga dhigo. aad iyo aad u maasan tahay videoga like ka iloon saa ku sheega da ugu cusubtana subscribe ka iloobin aad u maasan tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatuh.